waxaan rabnaa inaan ballaarino wada tashiga ku saabsan mowduucan isaga ah oo aan 3 beri u fadhino. talada hadda maanta meeshaan laga akhriyo shirkaan ka soo baxday oo talooyin kale lagu daray oo kuwo kale lagu daray oo laysu rifaangareeyey oo laysu hagaajiyey ayaan ku soo dhammayn doonaa insha allah. sidii daraad aan idiin sheegayna markaa kadib la marsiiyo golayaasha wasiirada iyo baarlamaanka labadoodaba ilaa iyo madaxda qaranka lala aado si ay sharci u noqoto oo dastuurka ku-meelgaarka oo ereyadiisu isticmaalay senatarkuye hadda laga shaqaynayo in meeshaan ay ka soo baxdo qodobo lagu daro oo la yidhaahdo awooduhu mabda ahaan dastuurka badanaa faahfaahin laguma qoro mabda ahaan saatanay noogu kala qaybsan yihiin wixii faahfaahinahoo ku aadanina ay meel kale uga muuqan doonaan oo u baahan in inta laga wada xaajoodo soomaaliya ay go-aan ka gaarto oo ay ama dastuur ku qorato iyo sharci ama siyaasad ay ku qorato in dhinacooda wanaagsan oo waddankan anfici kara ilaahay naga waafajiyo. aad iyo aada u wada mahadsan tihiin madaxda qaranka oo ka soo qayb gashay maalmihii lasoo dhaafay ilaa iyo maanta. dhammaan qaybaha bulshada oo meesha fadhiya walaalayaal waa mahadsan tihiin. shirkina waa noo xiran yahay.